hawlwadeenada dhulka nadiifiya ee dawladda hoose ee Gabiley ayaa maanta cabasho la hor yimiday dawladda hoose ee Gabiley kadib markii ay waayeen mushaarkii ay xaq u lahaayeen. maxay ka mudaharaadayaan midabkoodana wada arkaysa waxay cunayeen way ka weeyeen marka mushaarkii ma mushaarkii way doonayaan bilowda leeyahay horta mushaarka bas bilowda leeyahay bishii naga tagtay تاني كسرت سيارة تونكا. مركا ولي ما ملك ما دوش يكتر هرن تاني. ما حتري. بسكوتو. إنك قبل ما ليدي كده علي. كذا يكسرتنا. والله يدي تنمرين يا أخي. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley oo aanu arintani wax ka weydiinay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa maalay ayaan daraahay hadda marka maanta shaqaalii dawladda hoose mushaarkooda ay leeyihiin ayadoo waliba 2014 kamiisaanada aanu ugu darnay annagoo shaqaalaha daryeelka nadaafadda u kordhinay 20% mushaarkooda oo goluhu cod aqlabiyada ku ilaatan kuwa ku ansixiyeen in maanta ay mushaarkoodii hore leeyihiin waxaan cadeynayaa in ilaa bisha kooxnaad ama inta sanadka dhan ay leeyihiin kororkii aanu ansixnay anagu ee miisaaniyada ku jiray goluhu sidee maayarka u doorteen bay u ansixiyeen miisaaniyada shaqaalaha loo kordhiyay saasi sharci ku tahay waxay maamulka dawladda hoose noo sheegeen golaha dhameystiran in maalin madaxweynuhu yimid Gabiley oo habeenkii noo joogay ay ku baxday casuumadiisii 260 milyan inoo dakhliga kastamka maanta inaga soo gaalownahay oo aqliga bilaadanka galiyay in maanta shaqaalaha xaqiiq guriga mushaarkoodii waayeen oo ayaan daro وفائدة أنكو هنا حكومة أبي أول ما يصير فوقي واحد كفاريني لعبت من تحت ويد الجنيه شغاله ولا جيش راي قتلي xogayaha fulinta dawladda hoose ee Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo isagana aan wax ka weydiinay ayaa ka gaabsaday inuu wax tafaasiil ah ka bixiyo arrimahaasi